Halkani oo aan idinkala socodsiinayno wararka kala duwan waa GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Itoobiya waxay si adag uga shaqaynaysaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhaqaale ee istiraatiijiga ah ee u dhaxeeya Afrika iyo wadamada Khaliijka. Sida uu sheegay Danjire Adara Abarra, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda. Madasha iskaashiga dhaqaale ee Khaliijka iyo Afrika oo ujeedadeedu ay tahay xiriirka dhaqaale ee u dhaxeeya Afrika iyo wadamada Khaliijka ayaa ka bilaabatay magaalada Addis Ababa ee Finfinne. Madashan waxaa lagaga hadli doonaa arrimaha dedejin doona gudubka dhaqaale waara oo ku salaysan iskaashiga istiraatiijiga ah iyada oo la ballaarinayo maalgashiga iyo warshadaha Afrika. Barnaamijka dib u habeynta dhaqaalaha ee Itoobiya ayaa sidoo kale abuuray jawi horumarineed oo qaarad iyo caalami ah iyadoo la ballaarinayo fursadaha ganacsiga iyo maalgashiga. Madasha waxaa lagu tilmaamay fursad muhiim ah oo lagu sii xoojin karo iskaashiga istiraatiijiga ah ee muddada dheer soo jiray oo u dhaxeeya wadamada Khaliijka iyo Itoobiya dhammaan dhinacyada horumarinta. Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Danjire Adara Abarra ayaa sidoo kale sheegay in iskaashiga istiraatiijiga ah iyo kan waara ee u dhaxeeya Afrika iyo wadamada Khaliijka ah oo door muhiim ah ka ciyaarayo dardargelinta kobaca dhaqaalaha. Wuxuuna sheegay in xilligan isbeddelka dhaqaale ee degdega ah ee Afrika, 7 ka mid ah 15 dhaqaale ee ugu kobac badan adduunka ayaa la filaya in ay ku jiraan qaaradda. Wuxuu sidoo kale sheegay in heshiiska caagga ganacsiga horta ah ee qaaradda Afrika uu abuurayo caagga ganacsi oo caalami ah oo weyn, isla markaana furaya fursado cusub oo loogu talagalay warshadaha, ganacsiga iyo maalgashiga. Waxaa kale intaasi ku daray in Afrika hadda ay ballaarinayso meesha ay u socoto ee maalgashiga, waxayna noqonaysaa saaxiibo istiraatiiji ah oo loogu talagalay damaanadqaadka cuntada, tamarta, cusboonaysiin karo iyo silsiladaha sahayda adduunka. Dowladaha Khaliijka ayaa sidoo kale si weyn u maalgashanaya kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta la cusboonaysiin karo, tiknoolajiyada, maaliyadda iyo beeraha iyagoo adeegsanaya sanduuqyo hantida madax bannaan. Wuxuuna xusay in baahida loo qabo in la sii xoojiyo iskaashiga iyadoo la abuurayo sharci maalgashi oo la isku halleyn karo oo soo jiidasho leh iyo qaab dhismeed siyaasadeed iyo in la dhiso farsamo hergelin iyo kormeer oo xooggan oo hal abuur leh. Itoobiya oo ah xarunta midowga Afrika iyo diblomaasiyadda waxay xaqiijisay ballanqaadyadeeda in ay sii xoojiso iskaashiga istiraatiijiyadeed ee u dhaxeeya qaaradda iyo wadamada Khaliijka iyo xoojinta xiriirka dhaqaale ee gobolka. Shir madaxeedka caafimaadka ee midowga Afrika oo ka furmay magaalada Accra, caasimadda dalka Ghana. Shir madaxeedkan ee caafimaadka midowga Afrika oo ay ka soo qayb galeen dhowr hogaamiye oo Afrikaan ah oo uu ku jiro ra'iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya Mudane Temaskian Turune ayaa ka bilowday dalka Ghana. Waxaa la ogsoon yahay in ra'iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya Temaskian Turune uu gaaray magaalada Accra, caasimadda dalkaasi Ghana, si uu ugu qayb galo shir madaxeedka caafimaadka ee midowga Afrika. Markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Accra, ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxaa si diiran soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Ghana Samuel Okotizio iyo mas'uuliyiin kale oo sarsare ee dalka ka tirsan. Shir madaxeedkan gaarka ah ee caafimaadka qaaradda ayaa la isku yimid iyadoo laga jawaabayo qaraar uu ansixiyay kala fadhiga 38aad ee caadiga ah ee midowga Afrika AU ee Addis Ababa. Wuxuuna ujeedadiisu ay tahay in la helo madal wada tashi ah oo ku saabsan mudnaanta caafimaadka ee isbeddelaysa Afrika, iyada oo laga duulayo qaraaradii hore iyo ballanqaadyadii qaaradda. Shir madaxeedkan ayaa ku talin doona qorshe qarash buuxa leh oo midowga Afrika uu ku gaarayo 2030 iyo wixii ka dambeeyaba si loo xoojiyo ka hortagga HIV/AIDS,
na dhiso nidaamyada caafimaadka ee adkeysiga leh iyo in la hubiyo amniga caafimaadka qaaradda. Shirkani waxaa halkudhig looga dhigay kor u qaadidda sinaanta iyo caymiska caafimaadka guud, afjaridda HIV/AIDS iyo TB, hagaajinta caafimaadka hooyada iyo wax ka qabashada cudurrada kulaylaha ee aan la isqaadsiin karin iyo kuwa faafaba. Shirkani wuxuu xigsanayaa in la abaabulo ballanqaadyada siyaasadeed oo heer sare ah, lana xoojiyo hirgelinta istiraatiijiyadeed ee kordhiyo maalgashiga gudaha ee waarta, isla markaana la ballaariyo wax soo saarka daawooyinka gudaha iyo in la dedejiyo hirgelinta mudnaanta caafimaadka Afrika si loo gaaro aragtida Afrika ee la higsanayo ajandaha 2063. Xarunta cilmi baarista biogaska ee Jaamacadda Jimah waxay gacan ka geysanaysaa bacriminta ciidda iyo wax soo saarka beeraha. Jaamacadda Jimah waxay ku dhawaaqday in xarunta cilmi baarista biogaska ay aasaastay jaamacaddu ay gacan ka geysanayso bacriminta ciidda iyo wax soo saarka beeraha. Waxaa la tilmaamay in jaamacaddu ay qaybteeda ka qaadanayso casriyeynta iyo ballaarinta shaqada beeraha iyadoo fulinaysa mashaariic cilmi baaris oo kala duwan, sida laga soo xigtay agaasimaha sayniska iyo machadka tiknoolajiyada ee Jaamacadda Jimah, Injineer Ephraim Waqjira. Xarunta cilmi baarista biogaska oo uu dhisay machadka tiknoolajiyada waxay bixinaysaa adeegyo tababar iyo soo saarista tamarta. Wuxuu sheegay in jaamacaddu ay ururinayso alaabada qashinka lagu tuure oo loo isticmaalayo soo saarista gaaska biolojiga. Wuxuuna sidoo kale sheegay in xarunta ay sidoo kale gacan ka geysanayso bacriminta ciidda iyo wax soo saarka beeraha iyadoo diyaarinaysa bacriminta dabiiciga ah.